السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qodobada iyo xubnaha aan idinkugu hayo muuqaalkan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee gobolka Shabeellada Hoose madaafiicdii lagu garaacay degmada Afgooye halka uu gaarsiisan yahay khasaaraha rasmiga ah ee dhimashada iyo dhaawaca iyo waxa ka jira in saraakiil iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya maalmo ka horna la geeyay degmada Afgooye inay qayb ka ahaayeen dhimashada iyo xogo kale oo faahfaahsan ayaan idin hayaa. sidoo kale waxaad daawan doontaan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo wado qorshe ka duwan kii hore ee weerarka lagu qaaday kooxda qawaariijta ah iyo saddex qodob oo ay ka hadleen mas'uuliyiinta laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya oo saxaafadda iyo bulshada laga qariyay balse halkan aan idinkula wadaagayo. sidoo kale waxaad daawan doontaan taliyaha ciidanka booliiska gobolka Banaadir oo bilaabay caburin ka dhanaa saxaafadda kadib markii ay baahiyeen qaar ka mid ah dhacdooyin ka dhacay gudaha magaalada iyo sidoo kale gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan degmada Afgooye. haddaba maxay tahay tallaabada qaldan ee uu qaaday taliyaha ciidanka booliiska gobolka Banaadir waxaan idinkugu soo gudbin doonaa gudaha muuqaalkan. sidoo kale waxaad daawan doontaan hooyo Soomaaliyeed oo dalbatay in lala baadigoobo gabadheeda oo ay ku laadahay nolol iyo geeri kadib markii ay isku dayday inay ka baxdo wadan xaaladiisu ay tahay alow sahal umuraha. qodobadaas iyo sidoo kale xogo kale oo aan idin qarinayo ayaa halkan idinkugu soo gudbinaya. hay'ashee waxaa idinka codsanaynaa inaad muuqaalkeena sii gudbisaan sidoo kale in aad ka mid noqotaan inta nagu xiran oo aad subscribe inoo saartaan barteena YouTube. mahadsanidin. aan ku bilaabo degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa ka dhacay sida aad xogaha iyo warbixinadii kale aad ku maqasheen weerar culus oo loo adeegsaday madaafiic waxaana ka dhashay khasaaro lixaad leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. inkastoo laamaha amniga ee dowladda federaalka ay ka gaabsadeen ka hadalka arrintan haddana saacadii la soo dhaafay waxaan ogaanay in dhimashada iyo dhaawaca ay aad u sii kordheen waxaana dhintay in ka badan 40 ruux oo u badnaa dad shacab ah. waxaa ku jira saraakiil iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda kuwaas oo maalmo ka hor laga waday gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho lana geeyay gudaha degmada Afgooye si ay uga qayb qaataan howlgalka sifaynta ah ee ka socda qaybo badan oo ka tirsan dalka. madaafiicdan waxaa la sheegay in kooxda qawaariijta ah ay ku garaacday degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose iyada oo laamaha amniga taas fashil iyo ceeb ay ku tahay. dhinaca kale haddii aynu eegno isla gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan degmada Afgooye wariye Ibraahim Mayow oo loo yaqaano Bashka kana howlgalayay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayay ciidanka dowladda gaar ahaan booliiska xabsiga u taxaabeen waxaana amarka la sheegay inuu bixiyay taliyaha ciidanka booliiska gobolka Banaadir oo qayb ka ah xubnaha dowladda ee ku sugan degmada Afgooye ee madaafiicda lagu garaacay. wariyahan oo gudanayay waajibaadkiisa shaqo ayaa tabiyay dhacdo ka duwan tii dowladda ay rabtay oo ah in la faafreebo lana qariyo wixii dhacdo ah ee dhacday wuxuuna bartiisa gaarka ah uu u leeyahay ku soo qoray faahfaahin ku saabsan dadka dhintay kuwa dhaawacmay tiradooda iyo goobaha loo maleynayo in laga soo tuuray madaafiicda iyo taas oo muujinaysa in fashil ay ku tahay laamaha amniga ee dowladda xilli intooda ugu badan ay joogaan Shabeellada Hoose, Shabeellaha Dhexe, Hiiraan iyo Galgaduud. taliyaha booliiska gobolka Banaadir oo taasi ka carooday ayaa amar ku bixiyay in wariyaha looga yeero saldhigga degmada Afgooye waxaana dhacday ugu dambeyntii in lagu amray taliyaha booliiska degmada Afgooye in wariye Bashka loo wareejiyo gudaha magaalada Muqdisho laguna xiro xarunta CAD ee dambi baarista. haddaba macallin Mahdi ayaa inta badan caburin waxa uu ku hayaa saxaafadda madaxa bannaan ee ka howlgasha gudaha magaalada Muqdisho wuxuuna isku dayaa qarinta dhacdooyinka joogtada ah iyada oo ay dowladda rabto in loo sheego sida iyada ay doonayso. hayeeshee taas oo ka soo horjeeda nidaamka iyo sharciga saxaafadda ee madaxa bannaan. waxaan wariyahaasi u rajaynaynaa in uu helo cadaalad iyo in xorriyadiisa dib loogu soo celiyo haddii aynu nahay bahda Abuja Media.
dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan saraakiishooda ugu sareysa iyo madaxda dowladda qaar ayaan ogaanay in kulan ay yeesheen looga hadlay taatiko iyo qorsho ka duwan kan hadda ee duulaanka dowladda ay ku qaadayso, waxaana la qorsheeyay 3 qodob oo waaweyn oo ah in la bedelo qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda iyo qariiradii loo dejiyay dagaalka, iyo in sidoo kale la sameeyo isku dhaf ciidan oo ciidamada dagaalka ka qayb qaadanaya laga dhigo ciidamo kala duwan oo hal dhinac aan ahayn. sidoo kale waxaa kulanka ogaanay in saraakiisha ugu sareysa dowladda lagu amray in marka ugu horeysa dagaalka ay afka hore ka galaan oo aysan noqon kuwa ugu dambeeya haddii arrintaasi ay caddaatana tallaabo degdeg ah laga qaadi doono. ugu dambeyntiina daawadayaal, haddii aynu eegno Faadumo Xuseen Cabdulle Jilibey ayay baafinayaan ehelkeeda xilli la waayay taariikhdu markay ahayd 3 bisha 1 2025, waxaana wararku ay sheegayaan in ay u sheegtay ehelkeeda in ay u socdaaleyso dhinaca iyo dalka Spain, waxayna ku sugneed wadanka la yiraahdo Mauritania. ehelada ayaa raq iyo ruux weli kula gabadhaasi, waxayna dalbanayaan in haddii ay jirto cid aragtay oo wax war ah ka hayso caafimaadkeeda iyo nolosheeda in ay la soo xiriiraan. waxay u sheegtay habeen ka hor inta aan la weynin in ay ka baxayso dalkaasi Spainna ay u tallaabayso, waxaana intaas ay ku dartay in ay jiraan gabdho iyo wiilal ay asxaab yihiin oo safarkaasi ku weheliya. xilligaas ayaana ugu dambeysay ehelka hadda walwalka muujinaya ee codsanaya in lala baadigoobo gabadheeda ama gabadhooda. maanta ayay ahayd markii dowladda federaalka ee Soomaaliya magaalada caasimadda Muqdisho ay kasoo dejisay in ka badan 145 ruux oo dhalinyaro ah kana koobnaa rag iyo dumar, kuwaas oo laga soo daayay xabsiga ku yaala dalka Liibiya. tani ayaa imaanaysa xilli dhalinyarada Soomaaliyeed intooda ugu badan ay sheegaan in aysan nolol wanaagsan iyo shaqooyin aysan ka helin dalkooda, haddii taas ay dhici lahaydna ay wadankooda sii joogi lahaayeen. haddaba waxaan markaa idinka codsanaynaa haddii aadan ka midkeen inta nagu xiran in aadna dhiirigeliso oo aad subscribe noo saarto barteena YouTube si aan u gaarno yoolka iyo hadafka aan hiigsanayno. Salaamu calaykum.